arooska malaba iyo ninkan oo dhacay bis soo socoto in Janaayo 19keeda ayna faahfaahina waxa waaye ninkan qabiilkiisa taariikhdiisa iyo magaciisa kulli waa idin sheegi doonaa dadka hadda ku wareersan yihiin fanaan dad caan iyo mataqaana wariyaal iyo siyaasiyiin waxa xogtooda fadhiso boqolkiiba boqol confirm shariif ay u maanaysiin wax ka soo daa gadaashiisana shariif ay u maanaysiin mataqaana waxa waaye malabo sida wada ogtihiin waa gabar aad u taqaaniin dabeecad ahaan malaba qof fiican waa qof aad u fiican waay oo aad u qalbi fiican waay gabdhaha ugu fiican magaalada Muqdisho ku jirta mataqaana magaceedan ninka hore barnaamijkeeda uga soo hadlay taariikhdeeda hadda waa ku cilna magaceeda waxa la Fartuun Daawud Xuseen Allah malaba kuna naanisan kuma xdeertay ninka ayaa waay ninkan magaciisa waxa la Cabdi Xaaji Cabdiraxmaan waa Soomaali waa daarood waa mataqaana mareexan waa reer xasan waaye reer xasan wuxuu ka yahay reer Yuusuf ka yahay wareer gado waaye reer xasan waa la yaqaan niman oo mintad waay oo mataqaana aan waxba garan aan ka bixin Allah waxa Allah kooxda mintadka Allah kooxdan waxa waaye waa niman mucjiso waay reer gado iyo jubbooyinka hoos dhulkaas dhan degan ilaa doob nimanka waa joogan ninka cidiisa ninka walaalayaal waxa waaye taliyaha oo waxa waaye mataqaana heeganka macnaha waxa waaye checkpointida oo madaxtooyada waa macnaha wax la wixii madaxtooyada soo galaayo ka baxayo مسؤوليته أساس كله متقنا تليا أساوه متقنا عبدي قبلنا نقولسنايو متقنا ملابو أروس قدر نحضر بس الجنايو وهو يسند صعده هدي لا يرادو مجال مجزو كده وأروس ضد مدح إيمانه محيا أساق تليا واي بالله صوماليا متقنا جيربونتي ده عبدي وهو ضد مدح معناه ومانايو أيضا الجبر عام تقانين أو ضد كسياسيين تأدي واحترامان ملابو مركز أروس وحنقولنا أروس وحنقولنا أو قرنية وحنقولنا أو مدحتويد ونقولنا محيا الويل أو مريحانه oo mataqaana madaxtooyada taliye ka ah iyo gabar mataqaana mataqaana ku jirto macna VIP-da mataqaana madaxtooyada iyo mataqaana Muqdisho ku jirto waxa waaye aroosayo waa aroos waxa waaye oo abgaal mataqaana Cili Cumar iyo waxa waaye aroos Marixaan oo reer Xasan waxa ka dhacay magaalada Muqdisho aroos aad iyo aad u shidan waay marka waxaan leenahay anaga balyo malabo ani asxaabtayda waa ku hambalyeynayna dadka sugay aniga qabiilkiisa iyo magaciisa maanta shariifka ku wareystay meel kale u raadinina shariifka ka heshan mataqaana waxa waaye anaga waxa leenahay hambalyo wiil yaan gabri caano arooska lagu riga Allah idin kaga dhigo malaba in badan waa rafatay in badan saasi maraxad amri oo wareegtay maanta waxa waa ninkii rabtay ninka fiicna maanta gacanta ku heshay malaba waxa ku leenahay hambalyo waxa soo haray Bilal Bushawi walaal asaga ma dhow aroos doona adiga soo socdo macna soonka kadib aad meelaas hadii ilaahay ama ka horbo aad meelaas u badan tahay asagana waxa leenahay hambalyo imaamka waa raagi soo badar cunay waa raagi wuxuu aroosa gabar Ingiriiska imaanayso oo mataqaana oo reer UK ah aan Muqdisho imaanayso asagana Muqdisho ka dhaca arooskiisa imeerkiisa asagana waxa leenahay imaam hambalyo leenahay qof walbo sanadka 2026 walaal wuxuu dhanlaa sanadka aroosyada way halis arooso abu ilmo badan oo hal dal Soomaaliya la badiyo xaliimo fadhiye ka kac حليمة 5 سنة 4 سنة على أروسين الزفجف حليموي وحواي فرح وأسبوع فرح له باستو هذين باب الزفجف معاه بلاوا هذين قرصتيرو معاه كوار باب بلا العلوي قبلها عقا هاي عيبانينا الزفجفة نم أو متقانا بيلكي نولشي سيني كانوا قال ربا نيو حال ربا شقيسنا الربا أو بشاركو حساب تمام ملابو والله ملابو قبلها عنك جيدا أفرتي قبل كستو عاني نين شقيسنا الربا ومالوغان كهدلاي نين أو مشقيسته أو تيك توك نحفظيو أو عاني هقورسن حتى قبل عانتا مين مغلسا وابوحان رق والله نرشاد مرسا حتى كان ملو نكان على فيري نين طليه فيري أو جاك بونتي أقورسن ما توكاسو حلوك بحنوها مركا حليمة عاني فدي ككا حليمة عاني الزفجف فدي ككا مراجسكو فيري ناكا قرح بدن مجرتو حليمة هي عيبين سوق قلها سوق قل مركله ملوا همبريو